idin leeyahay waxay tahay aan ka wada shaqeyno midnimada aan ka wada shaqeyno dhibaato kasta Soomaaliya soo martay gocasha aan ka falcelino maanta aniga inta soo istaago aan dhaho Soomaali kana soo gaaray Soomaali kana ku dhamaanayso waa wada ognahay anaga dhan inay Soomaali dhibaato soo gaartay dib waliba soo martay laakiin waxaan rabnaa waxay tahay in muhiimada uu leeyahay ay tahay in aan helno isbedel sidee wax ugu bedeli karnaa sidee aniga wax ugu bedeli karaa soo wax muhiim ah oo nagu baahan yahay qof waliba Soomaali ah oo waajib ah midnimada Soomaali magaca Soomaali maxaa ku tahay Soomaali kuma tihid qabaa'il kaliya kuma tihid qof shakhsi kaliya laakiin magaca Soomaali waxaa ku tahay dhammaanteena dhan waa marka la isku daro maanta qofka dusan qofku ku dhimanaaya ama qofku wax ku soo gaaray uusan asiga qabiilkiisa ama qof asiga kamid ah uusan ahayn wax dib uma arko caadi waaye laakiin ma u maleeyo qofka dhimanaya inuu yahay walaalkiisa Soomaaliyeed qofka dhaawacma inuu yahay walaalkiisa Soomaaliyeed taasi hadaan hal mid idinka sheego taariikhna markaa qoray aad idiga imayso waxay tahay aniga walaashay aniga inta cunayna ayaa waxaan la soo sheegay Muqdisho qarax ka dhacay marka walaashay mid waxa jira bajaaj ka wada Muqdisho marka waxay dhacday waana la soo xalaado ama qarax ku dhintay weediyo waa waxaan qarax ma ku dhintay ma ku dhiman uu fiican yahay bas cunadii aan ku laabana waa sii cunay marka aniga waa awood waa inaan sii cunay yaa kala ku dhintay dad badan ku dhintay saan bas waa awood waa inaan sii cunay marka way wadiisay waxay tahay maxaa cuntada cunay maada dawalaadkeega badintay maxaa cunaada gacantii ka ficiso taasay waxay tiri mala hadaba qofka dhinta waa nala soo sheegay way fiican way nabad qabaane maxaa qofka dhinta hadana ay sheegaysaa bay kan inta dawalaadkeega hooyada iyo aabay dhashay dusunahay ka Soomaali dhintay sakuweyna iyo aabay madani marka ay weeyaan waxaad wax jirmaanay walaalahay soo fadhiis cuntadaada cun ani waa cun waan ka kacay marka waxaad ka dareemaysaa meesha qof kasta oo anaga naga mid ah maanta inuusan dareensaneyn ka dhimanayo inuusan walaalkiisa yahay ka dhaawacmayo inuusan walaalkiisa yahay haddaasan dareensanaan lahayn halkan maanta inaan imaano maxaa la jir goobadan uma arki lahayn mid aan nabad iyo waxa ku haysan marka waxaan idin dhihi lahaa mar walba inaad ka shaqaysaan nabadgelyo qofka dhimanayo inaad u aragto qofka walaalkaaga Soomaaliyeed waa in bulaarujinaya buugaaneed kama sheekeenay kaliya qaraxyadii ka dhacay soo wax inaad ka sheekeyso waxa ka wanaagsan reason-kii lagu xalin lahaa inaad sheegto buuga wuxuu kala ka sheekeenayaa reason-kii lagu xalin lahaa inuu ku jiro qodobkii 8aad oo reason-ka lagu xalin lahaa waa ka fikrad ahaanteeda oo aan aruurinayo dhowr sano haddana awoodiisii waasi inaan ku soo wada dhigo qaraxyadii dhan ka dhacay dalkeena waayo waxaan u baahanahay ka hortag dhig joojin aan u sii sudiyay ayagoo wada dhamaysnaa insha Allah way soo socdaan marka waxaan idin leeyahay Soomaalinimada mar walba haliilo ani waan jeclaa dadkii waa ku faana laakiin mar waliba waxa taagan oo la xasuuqay shacabkeeda sida xaq taro loo xasuuqay waan jeclaa inaan badbaadiyo laakiin aaway I'm very emotional so marka waxa idinku dhiirigeliyaa mar waliba inaad ka shaqaysaan sidii aan xal ugu heli lahaa oo gaar leen marka waxa idin leeyahay mar waliba inaad ka shaqaysaan هذا ما سمعت سميرو وعن برامج كم عندما الصلاة أنه